بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن ونكسن داوديال wararka ka imaanaya deegaanada Puntland gaar ahaan buuraleyda bari ee Calmiskaad ayaa wararku waxay sheegayaan in kooxda Daesh ay dagaal xoogan ay saqdi dhexe xalay ku soo qaadeen fariisimo ciidamada Puntland ee ku leeyihiin buuraleyda Calmiskaad. waxaa halkaasi fashilmay weerarkii ay kooxda Daesh soo qaadeen kadib markii dhowr xubnood oo kamid ah kooxdaasi la toogtay qaarna ay isqaxiyeen. sidoo kale waxay ciidamadu fashiliyeen gaari nooca markaasi iska rogaha ahi oo ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa kaas oo markii dambe la toogtay darwalkii gaarigaasi waday halkaana uu ku fashilmay weerarkaasi. tiradii ugu badneed oo ajaanib iyo sidoo kale afrikaan qaybahooda kala duwana ayaa ku dhintay weerarkaasi kuwaas oo badankood isqarxiyey qaarna ay ciidamadu toogteen. waxaana lagu soo waramayaa in dagaaladii ugu cuslaa ay weli ka soconayaan deegaanadaasi gaar ahaan buuraleyda Calmiskaad. waxaana wararku sheegayaan in toga jacayl hadda dagaalka uu sii marayo oo halkaasi ay ciidamada Puntland iyo sidoo kale kooxda Daesh ay iskula hoobteen. waxaana halka ka soconaya dagaal aad u culus. isbitaalada magaalada Boosaaso waxaa la geeyay dhaawacyo aad u tiro badan. dhimashiya dhaawac ayaa jira dhanka Puntland ha yeeshee kooxda Daesh ayaa weerarka ay xalay saqdi dhexe soo qaadeen waxa uu ka dhigan yahay mid markaasi fashil keenaya marka ama ku soo dhamaanaya fashil marka loo eego raggi isqarxiyay iyo sidoo kale kuwa markaasi la fashiliyay ee la toogtay iyadoona ciidamada Puntland ay markaasi haatan ay ku sii baxsanayaan kooxda Daesh buuraleyda toga jacayl ee Calmiskaad. dhanka kalena ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ayaa maantay dhoolatus ku soo bandhigay gudaha magaalada la yiraahdo Dolow halkaas oo gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub iyo saanad military ay ku soo bandhigeen ciidamada daraawiishta. gudoomiyaha degmada Dolow ayaana tababar u soo xiray xubno ka mid ah ciidamadaasi oo waayidii dambe tababar ku qaadanaya deegaankaasi. ciidanka siyaasaddu waa ka mamnuuc. waa la socotaan Soomaaliya dhan ba xasarad ba ka jirto gaar ahaan gobolkan xasarad fara badan ba ka dhex jiro. xasaradaasna aan ku dhex milan lama rabo. ciidamada dawladda qof kasta horta dawladda ka mid ah waa dawladdanadi waa ciidankanagi waxyaalo badan oo bariyaan la sheegay waa aragteen oo mataqaana ciidanka dawladda iyo ciidankii waxa isku raacay Jubbaland ciidanka dawladda ciidanka Jubbaland isku raacay leeyahay waxaas ayda meesha kuma jiraan. waxaas waxa sameynaya shakhsiyaad aan tan state kana aan mataqaana turjumaan rasmi ah kaysan iyo mid federaalka turjumaad rasmi ah kaysan. ciidanka dawladda oo jooga gobolkan ku sugan waa ciidankanagi tawani intaas sano ay ka shaqeynayeen deegaankan dhex joogeen oo naftoodii iyo mataqaana iyo lugahoodu inta ay u burbureen. Kismaayo soo kale intaas oo guuta joogto oo ciidanka military dawladda Soomaaliya ah Kismaayo joogan garoonka dhaxiisa ciidamadana ma dhex degan waa isla joogan in marka talo xumo iyo siyaasad xumo iyo dad dan gaar raadinayo inay maalin walba si burcnimo ay u dhaqmaan ayadana xogaa ma qurux badna mana qurxnaan doonto haddii Ilaahay raado lamana sameyn doono. xarabna deegaanka nabadgelyo ka rabnaa dad meel degan iyo ciidamo meel degan iyo dad meel degan la fooday midna ma rabno. juudi fara badan baa la bixinayaa waa la socotaan deegaankan hadda aan ku sugannahay inta caqabadood oo ku heeran ogtiin waana mar kasta way hadda wax maanta dhacay bas ma taasna kulli eedeeda iyo xumaanteeda dawladda federaalka qaadi doonto madaxda u sareyso siyaasadda u qaabilsan anigu siyaasadda aad ugu sii fogaad mar rabo oo booliska siyaasadda state-kan ka tirsanay madaxdiisa joogto ayaka maamulba ka hadla kana hadli doona haddii Ilaahay raado. laakiin annaka maalin kasta qolo dana gaar leh inay soo ordo oo waxa iyo masaalixda iyo wanaag iyo horumarka aan sameeyno la xagalo haddana haddii ku meesha laga soo bilaabo dareemaysan 3 sano iyo 5 bilood ka hor ragana qaarkiis xooggiisa meesha joogno garanaysan dawladda korreys duurkaas aan ku jirnay hal sano yaan ku jirnay meeshaas hal sano ka bacdigeedna sanadkii soo dhamaadana galabka maqribka meeshan soo galnay wixii intaas sano juhud lagu bixinayo oo state-ku bixinay meesha ku burbureen. haddana isla dawladda hadda jirto yaa keentay oo qasab ka dhigtay in state-kii iyo gobolka isfahmaan waan isfahmeen saaka isku qofaan nahay cid Axmedow raadinaysa cid aan raadinaysa hal qof aan isku nahay nidaamkaas Jubbaland oo state-ka yaan wada leeyahay dhamaantanada ciidamadan kulli xuquuq ay leeyihiin ama state-ka ka qaataan ama federaalka ka qaataan waa ciidamada Soomaaliyeed dhamaan waa laga qaataa. logistics sidoo kale gaadiidka arkaysaan waxa arkaysaan wax juhud lagu bixiyo la bixiyay way qolo ama qabiil hadduu isku tago hal wax ah ama rasaas aan noqoto ama dhowr qoraan noqoto gali karta ma jirto baan baa soo sheegina waxaan dhaqamaantu waa dawladnimada annaga state-kaas aan ka tirsannahay waxyaalaha yar ku jiro siyaasadeed oo kala duwanaantaan oo iska saxmi doonaan laakiin ma rabno dad falaaga ah oo ciidanka dawladda iyo nidaamka dawladda mar walba hortaagan ma rabno dawladdaasina hadda ku mashquulna ma rabno inaan wax ka sheegno ma rabno
gobolka dhanna waa arkaysaan in Soomaaliya guud ahaan waxa ka socda xabada ka socdo taasna Ilaahay aan u barinaa annaga meeshan waa meeshii state-ka laga dhisay markii hore khilaafaad baa khilaafaadkiina madaxweynaha hadda talada hayay iyo ra'iisul wasaaraha yujuudi far badan ku bixiyay anagana dad xoolo amanin maalin walba dad ummadaha masir leh oo deegaan leh nahay oo wax walba leh yaanahay oo wadanka iyo kuraasta ay ku fadhiyaan sidooda han uga jiro inay qabtaan marka qaam wareennimo inaan u dhaqanno oo iyo fawda aan u dhaqanno maalinka xagga ordo xaggan ordinaa loo aan laga fikirin mustaqbalka bilaadanka deegaankan ku nool iyo dadka masaakiinta oo soo barakacay hadaan laga fikirin oo shakhsiyaad aniga danahayga hadaanan helin ama mujtamacaan oo dhan hababaan waa danteeda hadaan helin way taasna Ilaahay weena waahid ka marxati ka qof kasto waxaas ka qayb qaato oo ummad xaasnimo iyo barnaamij xumaana ka qayb qaato waxa weeye kulay adduun iyo aakhira labadaba Ilaahay baa daawanayo daan maanta aniga ummadda bulshada daan dhibaateeyo aan isqariyo ma isqari ama adumadu isqariyo ani adumadu hadaan meel fariisanaan aan masaalixina meesha ku midtay aadan adeen dab meeshan ku dar arintaas ayada waxa weeye Ilaahay baan ugu xisaabato Ilaahay waan arkaa laakiin bilaadanka nama arkaan waa la socotaan xasarada fara badan baa iska jiro qaraxyada la sameeynaa waxyaalo fara badan baa la sameeynaa waxaas oo dhan annaga waa ka duwan dad fara badan oo deegaankan jooga kulli waxaan aaminsanahay 100% am bilaadan baan nahay horta cadaalad baa inta badan ku shaqeynaa laakiin haddana wax baan naga halaabi karaa laakiin inta badan inaan toosinayaan dareeminaa talada hadda maanta meeshay taagan tahay waa ka sii wadana hadduu Ilaahay raado kismaayo iyo doolowna waa isku mid Ilaahay waa isbaday meel ay ku leexan karaan ma jiraan dadka aan ehelka nahay oo walaalaha nahay oo gobolkan ka soo jeedo ama gobolkan ku nool maanta hadaad ceel wax fiirisid hadaad gabaari fiirisid hadaad dawladda aan joogna fiirisid baar dheer luuq dhamaan ilaa bur oo dadka bilaadanimo u baahan yihiin iyo gargaar bay u baahan yihiin dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay sheegayaan in qalalaase dhanka ganacsiga ahi iyo jahwareer dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay kadib markii kooxda Xashin Sheekh Maxamuud ay shalay weerareen xisbiyo midoobayay kuwaas oo markaa doonayay in ay munaasabada ay qabsadeen ee ay ku midoobayeen markii dambe ciidamo loo diray taa oo jahwareer fara badan uu ka dhashay iyadoona markii dambe ay ciidamadaasi gabi ahaanba ay kala direen dadkii weerarkaasi amaba dadkii samaysanayay midowga musharaxiinta uu ka mid ahaa xildhibaan Jesow iyo sidoo kale siyaasiyiin kale dhinaca kale warar ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in inta badan goobihii ganacsiga ay qatiyaan ka taagan yihiin canshuur joogto ah oo ay ciidamada dawladda ay ku cadaadinayaan in ay dadku si qasab ku bixiyaan ugu dambeyntiina Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahaa ayaa si weyn u dhaliilay xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho ganacsigii oo xirmay iyo sidoo kale oo waliba lagu soo rogay canshuur zaa'ida iyo waxa uu kale ka hadlay qalaasihii ama dagaalkii shalay ka dhacay duleedka Muqdisho gaar ahaan aaga Jazeera oo dad badan ay ku dhinteen dadna markaasi la soo xirxiray oo ay dhibaato markaasi ku ahay dadka deegaanadaasi iyadoona ciidamo ka tirsan koonfur galbeed halkaasi ay ku dhinteen waxa sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu cambaariyay weerarkii shalay xisbiyadii midoobay lagu qaaday waa kan Shariif Sheekh Axmed oo arrimahaasi ka hadlaya bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصومالي ميل جوجتين بو أدن سلامايا waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhacdooyin laban shalay ay dhacday laban ay kasii horeysay hor istaagii lagu sameeyay shan xisbi oo ku shiraysa magaalada Muqdisho oo ujeedadooduna ay ahayd inay ka tashadaan sidii u midoobi lahaayeen taas oo aan u aragno inay tahay arrin aad iyo aad muhiim ugu ah dalkan maxaa yeelay nidaamka iyo hanaanka dimuqraadiyiinta ay horseedaysaa inay dadku mataqaana ka fikiraan habka ay wax wada qabsan lahaayeen uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka marka nasiib darro waxa ah in ayagoo mas'uuliyiintaas u fadhiyaan oo tashanayaan in ciidamada amnigu xoog ay ugu galaan oo shirkoodii halkaasi mataqaana fool xun u joojiyaan aad iyo aad ugu xunnahay waana cambaareynaa falkaas waana fal ka baxsan sharciga dastuurka ka baxsan dhaqanka wanaagsan ka baxsan dawladnimada ka baxsan inay ku dhaqaaqdo oo ciidamada amniga arrintaas ku dhaqaaqaan runtii waa nasiib darro aan aragnaa waxayna muujinaysaa sida looga been sheegayo doorashooyinka oo runtii aan horena uga digaynay haddana markhaati cad ay taasi u tahay dhacdada labaad isla shalay dhacday waxay ka dhacday deegaanka Jazeera waxaa xadgudub lagu sameeyey dadkii halkaas joogay mas'uuliin iyo shacabba gudoomiyaha deegaanka oo mar dhow la soo magacaabay oo lagu yaqaano qof nabadeed oo mas'uul inuu yahay ka soo jeeda dad nabadeed oo aan waliba dadka hubeysan aan ahayn
lagu dilay halkaas 2 qof oo dhalinyaro ah uga tacsiinayna ahalkoodii iyo qaraabadoodii sidaas oo kale ummadda Soomaaliyeed ayadana waxay muujinaysaa yani waxshinimada iyo sharci ku tumashada ciidamadu ay sameynayaan iyagoo caburinaya mas'uuliyiinta iyo shacabkaba taasoo ayadana ka baxsan dastuurka iyo qaanuunka lana isticmaalayo hubkii iyo mataqaanaa awoodii loogu talagalay in lagula diriro al-shabaab iyo dadka kasoo horjeeda nabadda runtii iyadana nasiib darra u aragnaa dhalinyarada dhimatay ilaahay ha u naxariisto ahalkoodii qaraabadoodana sabr iyo iimaan Allah ka siiyo ayagana aad iyo aad uga tacsiinaynaa waxaa jirtay 2 dhacdo kale oo kasii horeysay oo midna lagu sameeyay ururka haweenka qaranka oo looga bixiyay hoygoodii iyo xafiisyadoodii si aad u foolxun loola dhaqmay xabsiyo la geeyay runtii lagu sameeyay wax aad iyo aad uga baxsan dhaqanka wanaagsan iyo dowladnimada haweenka Soomaaliyeed oo la wada ogyahay sida ay uga qayb qaateen dowlad dhiska habeen maalin u taagnaayeen in ay dowladnimadu ay soo istaagto in la xalli waayo oo lagu xalliyo boolis iyo in la xiro ayadana nasiib darra aan aragnaa waan cambaareynayna sidaas oo kale ganacsatada magaalada Muqdisho oo ayagana bariyahan culayska lagu hayo aad u soo badanayo keentay suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho inuu xirmo ayadana waxaan aad iyo aad uga xunnahay waaye dhaqaalaha waxay ahayd in la dhiirigeliyo ganacsatada si uu u koro ilaan wax soo saarka ma jiro dalkan wax soo saarka ma socdo ugu yaraan in la dhiirigeliyo ganacsiga ahayd marka canshuuraha aan meel loo dayin maalin walba la saaro ganacsatada waxay keentay iyadana inay suuqadu xirmaan taasna iyaduna waa arrin kale oo runtii aan u adeegaynin dowladnimada markaan isku soo darno dhacdooyinkaas iyo kuwii ka soo horeeyay waxay muujinayaan in la marin habaabay dowladnimadii lala dhumay meel khaldan loo socdo marka waxaan leenahay wadada sharciga iyo dowladnimada u soo laabta waxa hadda aad sameynaysiin horay ayaa loo soo baroobeeyay 33 sano wixii soo socda inaad dib ugu laabatiin runtii waa nasiib darro marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed sharafkeeda iyo karaamadeeda in lagu tuntaa ayadoo la adeegsanayo magaca dowladnimada runtii waa nasiib darro dalkan dhibaatooyin fara badan ka jira ha noqdaan dhinaca amniga oo aan wada ognahay ha noqdaan dhinaca dhaqaalaha yani dad badan oo dan yara maanta ma haystaan noloshoodii ma haystaan marka maalinta ka dambeysa in la sameeyo waxyaabo runtii sii dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka masaakiinta ah nasiib darran u aragnaa marka waxaan leenahay u soo laabta caqliga wanaagsan iyo dowladnimada sharciga in la ilaaliyo oo dastuurka la ilaaliyo dowladdu u ahaa karahay laguma ahaa karo qorayaan sitaa ciidan gaar ahaan samaystay anaa waxaan doona sameynaaye dowladnimo kuma ammaanayso aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal aad baad u mahadsantihiin intaad nala socoteen waxaadna markaasi nagala socoteen barta YouTube-ka aanu ku leenahay aadan Kismaayo iyo sidoo kale qaybta Facebook-ga tan iyo kulanti dambe wixii soo kordha nala jooga waad mahadsantihiin